bareer isaga dilo oo qoriga la isaga qabto shacabka Soomaaliyeed oo dil la isaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askariga lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo. xasan juula shaakir waxa uu nolosha siijiyay cali taliya cariif oo ahaa bajaajla balcad uu ku dilo 10 January sanadan 2023 waxa uu leeyahay inaga ayaa isxigno oo xeer hoosaadkeena ku dhaqeeno wixii dhacay dadkan waa dad ehel wada qaraaba ninka qaraabana أنا مو أغاني وحن وأقرنا ولا أهربنا ما أذكرنا ومايا مركا بل أنت قرابا واجوكتا وقرابا سوق لحم غنتها وحكوا عصنا يا محكمة تلفتله نقول كيس كان دب واحد نقولك maragada la keenay maxkamadda ayaa qiraya inaysan jirin wax muran ah oo marxuum ka yeedeysanaha ka dhaxeeyay mootaa ka soo raaca meesha ani midka arfa ayaa ahaynay midkan asgariyan kala hada waxa la hayo aboostaya istaajeeda وإنه استاجي ورعى دون سير رعاي من كان ملك البردي أوفدي هذا سنة قريو سوق بصي حبض برير عاد وحبض نقولكين لا ببارات مذكر إلها كل وادي مذكر كان مرحوم كل عاد xafiis ka xeelaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor sheegay inay u dhameystirmeen ku talagalnimada dilka sida uu qaba Axmed Cabdallah ku xigeenka xeelaaliyaha ciidamada qalabka sida haddaba mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta leh بعدما uu eedeysana xasan juule si bareera u dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ilmihiisa u soo shaqo tagay waxa maalanayo colaadi aan kala dhaxayn dawladda la rabay inay gacanta ku ilaaliso cadawga ummadda Soomaaliyeed ee ka ilaaliso meesha laga rabay uu dilay askarigan waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedeysana xasan juule ay maxkamadda ku xubto dil toogasho ah isla markaana maxkamadda ay u fuliso sida ugu dhaqsiyaha badan si aysan u dhicin askari kale inuu si shacab ah si bareer isaga dilo oo qoriga la isaga qabto shacabka Soomaaliyeed oo dil la isaga geysto si aysan u dhicin waxaan codsanayaa in askariga lagu xukumo dil toogasho ah sida ugu dhaqsiyaha badan loo dilo qareenku waxa uu codsanayaa in maxkamaddu ay tixgeliso heshiiska reeraha eedeysanaha iyo marxuumka mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa jiro heshiis u dhaxeeyo ehelada eedeysanaha iyo marxuumka heshiis u dhaxeeyo ayaa jiro xeer ay leeyihiin waa dad ehel ah waa dad walaalaha waa ka wada fadhiyaan heshiiskoodana maxkamadda hor keeni doona daqiiqada ay kaga niqaashayeen go'aankooda ay garsoorku ku qaateen banaanka maxdarka waxayna soo saartay maxkamadda xukunkan sida uu ku dhawaaqay gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dood dheer kadib wada tashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen qiraalka eedeysanay xasan juula shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhageysteen maraga oo sheegay in eedeysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanaha uu galay dambiga lagu soo eedeeyay oo ah in uu dil bareer ah u geystay marxuum cali taliya cariif waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cali taliya cariif maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacidiisa wabillahi tawfiiq maxkamaddu waa noo xirantahay aabaha marxuum cali taliya cariif ayaa nala hadlay xukunka kadib maxkamadda sharafta lena waa ku faraxsanahay go'aanka ay soo jeedisay in gacan ku dhiil ninkii wax dilo la dilo oo maaragtay ay ku cumri qaataan dadka ka dambeeyo ay dhibaatada dilka ah ay ku badbaado ay soo jeedisay aad ugu faraxsanahay Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho